nin waalan oo socdo waxay ahayd in la qabto dadkiisa lagu simo meel caafimaad la geeyo ayay ahayd in isagoo nool garbaha laga xiro la dilo waa wax muslimnimada ka baxsan oo aan raadna ku lahayn xuquuqda aadanaha arrintaas iidaa runtii wajiib badan ay leedahay dagaalkan hadda ka socdo meesha la yiraahdo soona wala weyn anigu waxaan aaminsanahay qofka wuxuu aaminsan yahay inuu qariyo maaha waxaan aaminsanahay waa dagaal ay koonfur galbeed ku lug leedahay madaxweyne cabdicasiis is wax ka ogyahay waayo taliyihiisii booliiska ee soo magacaabay ayaa la leeyahay dagaalka wuu ku jiraa muxuu ahaay waad ogtihiinoo 13 qof markii la dili waxaan la hadalnay oo ama ila soo hadliba aniga ruuxii gudoomiyaha degmada waa ku mahadsan yahay laakiin dadkii as ii sheegay in la xirxiray muxuu ahaay la qabtay way sii daayeen aw maanta qof loo soo gudbiyay dacwadaas iyada oo 13 qof oo inta meel si u keenay hal meel lagu waa idin qudbayna leeri dawladii aan nahay koonfur galbeed ciidankeedii aan nahay leeri meel si u keenay baas la mariyay dadkii laga aqoonsaday la soo xiray way sii daayeen marka dagaalkaas dagaal ay koonfur galbeed ku lug leedahay waa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa muxuu ahaay arrintaas wax ka og dagaalkan hala joojiyo dagaalkan waa masiibana waxa way waa laga hortagaa cabdicasiis oo adna guul ku gaari maysid koonfur galbeedna guul ku gaari mayso koonfur galbeedna waa la wada degan yahay Soomaaliya oo dhamaad degan Soomaaliya oo dhamaad madaxweyne u tahay habar tilmaameysanin hal qabiil oo deegaankii oo dadka madaxweynaha aad ka tahay ciidankaaga iyo bartilmaameysan waxaad og tahay inaad ciidamo ku keentay diyaarado hadda ka hor oo aad dagaal aad gashay haddii muxuu ahaay aadna dagaalkaas ku lahayn dagaal qabiil waa la yaqaanaa diyaarado kuma keenteen muxuu ahaay kuma keenteen diyaarado ciidan waa la ogyahay adduunyada og safaaradaha caalamka og Ameerikaanka ee diyaaradii ciidanka keen wax barashar gareey waa maantana inaan dad nool la gubo sababteeda la qaadanay anagu dacwaanka qoraynaa arrintaas waxaan u gudbinaynaa hay'adaha caalamiga waxaan u gudbinaynaa muxuu ahaay hay'adaha xuquuqul insaanka waxaan u gudbinaynaa muxuu ahaay adduunyada dawladda Soomaaliyeed oo maanta loo dacwooda ma taalo oo kuugula xisaabtanta waay ciidanka aad u keentay waay uu taliyahaagi ugu lug leeyahay muxuu ahaay dagaaladaas wax dhahayo ma laha marka dhammaan dadka ay qusayso arrintan waaqo xumay keenaysaa laga joogo maanta waxay taagan tahay hal qof oo la gubay qofyaal badan oo la gubiyaa dhici karta marka waa inaad ka joogtiin arrintaas iyada laga waantooba cabdicasiis madaxweyne arrintan arrin adiga ku anfacayso ma arrin Soomaaliya oo dhan anfacaysa ma gobol la wada degan yahay saddexda gobol waa la wada degan yahay waa gobollo caadi ah oo muxuu ahaay ku haboon in nabadooda laga aslaaxiyo haddii dagaalkan waqtigaas bilowdo waad og tahay dad 13 oo canug 3 jir isku jiro hooyadii dhashay iyo aabihii dhalay ay kuwada jiraan oo qoys dhanna ayaa la laayay hal maal adoo tacsiyeyna lagu maarag adigoo dadkii waa soo qabtay oo gudoomiyihii yiri maxkamad soo saara lama arag marka inaad ku lug leedahay qof kasto oo aqli leh waa la ogyahay waa la fahmi karaa marka waa ka xumahay runtii dad beeraley ah ayaa la dilay ficilka ka dhashay 13 qof dad beeraley ah la dilay oo beer tacbanaya makiinaysanay waa ka xumahay runtii aadan ugu xumahay laakiin haddana falka ka sii xun oo maalin walba meesha ay sii tagayso loo jeedo waxa waaye waa midatan dadka la gubay waa qofkii labaad oo weyn lagu gubayo oo waliba dad dhimirka ninkii ugu horeeyay geeda laga soo furay dadka gubaya geedka soo furay asoo xiran dadkiisi magaalada ay ka qaxeen geed ku xiran ayaa geedkii inta laga soo furay banaan la keenay la gubay kii ugu horeeyay kii ku xigay waa kan ciddii shalay la dagaalamay ee dad beeraley laga dilay
ayuu asoo waalno ka dhow leeyahay isu yimido sir BAC ninka qofkaas miir muu kula qabaa way ogyihiin dadka waa is yaqaaniin ninkaas xundow ala dhahaa waxaa la dhahaa isaaq muxuu ahaa isaaq daa'uud xundow waa la dhahaa waa nin waalan oo laga ogyahay walaweyn oo dhan laga ogaay marka waxay ahayd inay qabtaan dadka dili inay qabtaan oo xiraan dharkii ay waxay wataan ciidankii muxuu ahaa daraawiish booshaskii ay wataan ciidanka lacagaha lagu tababaray ciidanka koonfur galbeed waxaa bixiyay beesha caalamkaa bixisay beesha caalamka waxaan leeyahay war ciidan qabiil lagula dagaalamaayo ha tababarinaha koonfur galbeed waxa ka dhacaayo wax caadi ah maaha